ورحمة الله وبركاته. هذه أبغى السلام يا مركب كوبا ونحن وينا يا إذا تجا قروح بدن ما قدمتي نقول السلطين وأبغى إلى وقت بدن كوبا أنا هذه أبغى أحسنها مركا أنا أقول وقت الويري إن شاء الله تعالى وحق ربنا وقت أدو قابل تصدق دقيقة إلى 20 دقيقة سأديسو كاسيو أو بروسو بدلو شكلنا ما تلي بروسو عزوبي وحيد هاي تقال على جسد بي عفوا انتبه أنا ورثت أنا دور إن شاء الله تعالى مركا بروتوكول رسول حال الله برشوا الأكسس اللي شيء مقعد وخالد وحكم ده هيدا الشركة ده كيف هيدا يستيك حلو حرة مرة بيقول رئيسي أو تبقى ما نيسي حدنا وببحي مالك لا يتفكر وعديسي وحرة تكون أكثر قبل أن أوصل نيو إن شاء الله تعالى مركا وحكومات دوتها تقالها شكدا اللي قصر نيو توقسيسي هاي يا أنت وقت تقول قاعدة تقطين عصميسو إن شاء الله تعالى وحكومات كل هذا ما تيم بقصور هذا شكدا مقعد الحلوة يقعنا ألفا جروب نوتريشن وحنا نوصل قابيا ايجي نوتريشن طبعا نوتريشن مركا مقاشيدا ما أنتريتو وحكومات وحكانا فقال يسال الله بدنا هذا شو فقد هو ناكسن سي عافمات كاغا هو اهابس بدات هو ناكسن sidoo kale nutrition waa dhinaca caafimaadka mushkiladu waxay doonaysaa caafimaadha inay kor u qaado waan ogaan doonaa sidii kor loogu qaadayso insha Allah taala next mushkilada taariikh ahaan iyo background ahaan waxay soo bilowday taariikh ahaan 2019 bishii May waa xilliga shirkaddan launcherka ay tahay ama xariga laga jiray shirkadda taariikhdeeda magaalada caasimadda koobaad ay ku taalo magaalada loo yaqaano Kuala Lumpur ama Kuala Lumpur sidoo taqaano dalka Malaysia shirkaddu xarigii xagga waxaa laga jiray 2019 bishii May 15 Afrika waxay soo gaartay shirkaddu July 2019 waxay xarumo ku leedahay aad u waaweyn qaaradda gudaheeda wadamo gaaraya 34 wadan ay ka mid yihiin dalalka Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Zambia, South Africa, Nigeria, Namibia, Togo, Benin, Chad wadamo kale aad u fara badan oo qaaradda gudaheeda ku yaala ay xarumo ay ku leedahay shirkaddu Soomaaliya xarumo ay ku leedahay muddooyinkii ugu dambeeyay last 5 months ama 5 bilood ugu dambeysay waxay aad u shaqeynaysay waxayna ku taala xarunteeda koobaad magaalada Muqdisho shirkaddu waxay xarumo ay ku leedahay magaalooyinka Gaalkacyo, Baydhabo, Kismaayo inta kalena waxaan rajeynaa insha Allah taala inaan ku faafi doono gudaha dalka shirkaddan waxay soo saartaa waxaa kamid ah waxyaalo fara badan waxyaalaha ay soo saarto waxaa kamid ah dabcan daawooyin dabiici ayaa kamid ah waxyaalaha ay soo saarto waxaa kamid ah daawooyin waxaa kamid ah waxyaalaha loo yaqaano coffee ama kafeega caadiga waxyaalaha loo yaqaano waxay soo saartaa waxyaalaha maqaarka miskiinka lagu wanaajisto lagu karsado ayay soo saartaa waxaa kale soo saartaa waxyaalo kale oo kamid yihiin face mask loo yaqaano AG Pro loo yaqaano iyo sidoo kale waxay soo saartaa wax loo yaqaano AG Serum dhammaantood waxaa faa'iidooyinka ay leeyihiin baan dul carari doonaa muddo gaaban kadibna waxaan u gudbi doonaa insha Allah tacaala qeybaha kale bulshada wax ka ogaana marka qaybtan hadda waxaan ku haynaa waxay tahay xafiisyadeena waaweyn waxay ku taala laba nooc oo keliya oo product ay soo saarta kamid ah waana daawo magaceeda loo yaqaano AG Serum waxay taa ogaan doonaa insha Allah tacaala iyo mid kale oo AG Coffee loo yaqaano aan arki doona insha Allah tacaala طبعا shirkaddan waxay leedahay wax loo yaqaano founders ama asaasiyaal ayay leedahay shirkaddan ragga asaasiga 3 nin oo walaale laba isku hooyo isku aabe dabcan midna saaxiibo ay yihiin laba nin oo walaalaha waxa loo kala yaqaanaa Faaiz Saalax iyo Xafiis Saalax kan saddexaad waxa loo yaqaanaa Fahmi Casmi waxyaalaha ay wadaagaan waxaa kamid ah inay raggan leeyihiin 20 sano experience iyo over 20 years experience muddo gaarayso ay dabcan khibrada ay leeyihiin sababta ay shirkadda ku dooranay marka waxay tahay inay raggan leeyihiin koob khibrad aad u sareysa dabcan product marketing inay leeyihiin rag muslimiin ah oo macnihii diin ahaan iyo dal ahaanba aan wadaagno iyo inay sidoo kale ay yihiin dad dhalinyaro ah oo khibrad leh marka annagana ku dayashadooda waxay nooga dhigan tahay inaan haysano waxaan ku dayano oo inaan ayaga kula noqono ayaa dabcan nooga noqon tahay magacyada waxaa loo kala yaqaanaa Faaiz Saalax, Xafiis Saalax iyo Fahmi Casmi so these are the founders oo the company-gan asaasay waa dabcan next shirkaddan waxay leedahay wax loo yaqaano mission ujeedada shirkaddan ay leedahay waxay tahay ujeedooyinka ay leedahay inay samayso wax loo yaqaano life transformation ama life change ama inay nolosha qofka bini'aadamka wax ka bedesho ayay doonaysaa waxay doonaysaa dhaqaale inay ku siiso si aad nolosha wax badan uga bedesho ama waxay doonaysaa inay caafimaad ku siiso si noloshii iilka ahayd ee xanuunka ahayd ee muddada faraha badan la xanuunsanaysay ay kaaga bedesho website-ka shirkaddan kala xiriiri karto lacag hadduu kugu dhinaan waayo information-ka maanta aan ku siinayna waxay tahay inaad website-kan kala xiriiri karto www.agnutritioninternational.com ayaad kala xiriiri kartaa oo wax badan aad ka ogaan doontaa insha Allah tacaala shirkaddan waxay leedahay wax loo yaqaano core value shirkaddan ay leedahay waxay tahay core value waxaa lagu core value yacni waxaa laga wadaa inaad adiga aad leedahay ama ay ku tirsan yihiin qodobo ama articles waxa loo yaqaano
adiga kaga samayn karto dhaqaalahaaga horumar soo haddii adiga aad dukaan burburinaya wax kale aad leedahay marwalba waxaad u baahan tahay inay gacantaada ku jiraan qodobo adiga ganacsigaaga hore u socodsiinaya taas haddii ayna jirinin wax tilaabo adiga aad qaadi karti ma jirto haddaba waa maxay qodobada anaga ganacsigana u degan si aan horumar aan u samayno qodobka koowaad ganacsigana marba waa mid saldhigan waa macnaha waa mid excellence ah hore u soconaya sababtu waxay tahay qiimaha shaqada wax ku bixinayso wax kuu siinayso waa premium value waxa loo yaqaano ama in qiimaha dhexaada kugu soo gaarsiiso sidoo kale waxay kusoo gaarsiinayso waxay tahay waa wax quality tayo wanaagsan bay leedahay dabcan soo marka wixii gacantaada soo galaan oo wax adiga ku anfacaya haddii aad rabto inaad ganacsi kasii samayso waa wax adiga aad horumar ka samayn karto haddii aad rabto inaad goofigaaga ama jirkaaga u isticmaashada waxay tahay wax horumar ka samayn karto sidaasi darteed ganacsiga horumar wuxuu ku salaysiiya waxa loo yaqaano integrity qodobkas labaad ee macnaha dhaqaalaha horumarda waxa loo yaqaano integrity wada yani qofku inuu samaynayo doing the right thing wixii lagugu talagalay ee saxda ayaa samaynaysaa iyo haddaya in the business aad ku jirtaa dabcan dad ujeedada leedahay waxay tahay keliya inaad samayso dhaqaalo fara badan dabcan inuu ganacsigu yahay inuu wixii saxda aad samaynaysan waxay ka dhigan tahay in adiga ballamihii lagula galay ee ahaan lacag lagu siinaayo mar walba iyo qontaaga in productiga lagu sheegay inaad isticmaashan ayadan ay saamaan ay leedahay sidaasi darteed waxa aad samaynayso ganacsiga dhexdiisa waa wax saxda iyo doing the right thing okay qodobka saddexaad ee dhaqaalaha horumarka waxa loo yaqaano teamwork yani waxaa lagu wadaa inaan adiga iyo aniga iyo kuwa kaloo kamid ah isla shaqaynayno si dhaqaalaha horumar kaga samayno marka dhammaantan waxaan nahay we are committed to environmental waxaa loo yaqaano ayaan dabcan ku midaysanahay dhammaanteen baa dhaqaala ugu wada sameyn inteenaan oo wada jirna ayaa waxaan samayn karnaa dhaqaale haddii aan kala tafaarubsannahay ama aan isku jeedo lahayn waxa dhaqaala oo samayn karna ma jirto sidaas darteed ganacsiga wuxuu yahay waxaa loo yaqaano teamwork waxa loo yaqaano ganacsiga sidoo kale ganacsigana horumar waxaa kamid ah wax loo yaqaano win-win wax loo yaqaano ganacsiga marka adiga aad ku jirto aad ku faa'iidaysanaysid adabcan adigana waxaa tahay qof faa'iido samaysanayo oo guul gaaraya qofka shaqadana usoo bandhigtay ama aad soo gaarsiisay asagana wuxuu yahay qofka asagana guul gaaraya marka waa win-win wax loo yaqaano dabcan sidoo kale marka adiga shaqadan aad ku jirto maalin intaa dhex joogta xarunta ama xafiiska shaqada waxaa laga yaabaa inaad lacag badan aad samaynayso sidoo kale subaxdii markaa soo kala hayso oo shaqada aad soo gelayso ama anytime adiga shaqada aad soo gelayso adiga oo jeebkaaga lacag ku jirto oo shaqadii lacag kale ayaa shaqada soo gelaysa marka maskax ahaan waxaa tahay qof degan oo macnihi xataa shaqada qof ku dhiirinaya xilli oo inoo shaqaysta ayaa tahay marka win mentality wax loo yaqaano ayuu ganacsigana mar walba ku salaysan yahay waxaa ii sheegay waxaa kamid ah inay shaqadan ay soo saarto waxyaalo fara badan waxyaalaha ay soo saarto waxaa kamid ah daawooyin dabiiciya hal daawo hal nooc ayaan hadda gacanta ku haynaa oo magaceeda loo yaqaano AG-Sera daawadani waa daawo aad iyo aad u sareysa shaqadu markay daawadani soo saaraysay waxay isticmaashay teknolojiyad casri ah oo magaceeda loo yaqaano stem cell nanotechnology teknolojiyadan waa mid casri ah waana midii ugu dambeysay oo dabcan hadda dunida timaado waxaa loo soo isticmaalaa labadaba in lagu soo saaro daawooyinka loo yaqaano chemicalka ama habka labadaba waa loo isticmaala marka haddii aad dareemaysid ama aad ogtahay in la isticmaalay teknolojiyadii ugu dambeysay ama ugu casrisanayd quality-ga shayga markaasina waxaad ogaanaysaa inuu aad iyo aad ugu sarreeyo ayaa ogaanaysa dabcan marka waxay tahay waxyaalaha loo isticmaalo waxaa kamid ah daawadan inay jiraan xanuuno waaweyn oo loo isticmaalo sida xanuunada ay kamid yihiin kansaga pressureka badhikarka waxaa u taqaano diabetiska ama macaanka sidoo kale waxa loo isticmaalo ma jiraan testimonies tijaabooyin la qaaday in yacni daawooyinkan la isticmaalayay qof xanuunadan u isticmaalay ma jiraan dabcan su-aashu waxay tahay haa anaga dalka soomaaliya aan joognay waxay tahay waxaan isticmaal dad waxaa jirto daawadan aan u siinay kansar xanuun kansarka waayey ayaa jirto buroweyn ay ku taallay ilaa iyo madaxiisa inta kala sinaydba marka markaan siinana kunada qof aan ugu fiican sidoo kale waxaa jira qof pressure iyo sokor labadaba qabay maalinkuu noo imaanayay uu soo booqanayay qofkan wuxuu ka caawinayay sokortiisu inay ahayd 300 ee madaxdii gelinaysay pressurekana 280 inuu sii gaaraya ayay ahayd soo marka waraaqadii aan ka qaadnay dhiiggiisa aan cabirnay dabcan dhiiggiisa pressurekaas intaas ayuu ahaa 2 maalin 3 maalin kadib 4 maalin kadib markaan naga maqnayd waa noo soo laabatay cabirkii labada aan ka qaadnayna pressurekeeda wuxuu ahaa iska normal ilaa maalinkii ugu dambeysay aan la kulmay pressureka uu ka noqday mid ka dhamaaday oo negative la soo dhaafay dadkii xataa ay la tacaalayo maalin uu siinayay waxaa loo yaqaano daawooyinkii qolkaa siinayay ilaa markii dambe uu noqday uu sheegay in daawada ay tahay mid negative sidoo kale waxyaalaha loo isticmaalo waxaa kamid daawada iyo waxyaalaha loo yaqaano arthritis-ka digil baa ku hayo ku xanuunaya haddii macnihii lafa xanuun uu jiro iyo waxyaalahaas oo dhan dawadan waa antioxidant waxay tahay qof qashin saara ayay ka tahay waa glycerin waxaa loo yaqaano soo saddexdii bishiiba waxaa lagaa doonaya ugu yaraan inaad 3 jeer glycerin ku samayso ama aad dhaqdo jirkaaga ayaa u baahanta weliba qaybta hoose ayaa u baahanta si aan caafimaadkaaga marba u noqdo optimal ama mid dhexaad oo wanaagsan si uu noqdo marka daawadan waxay tahay glycerin ku samaynaysa mar walba ama dhaqaysa qofka jirkiisa dhaqaysa sidoo kale waxay tahay human systemka qofka ama human systemka waxaa loo yaqaano ama difaaca jirka qofka ayay aad u sarraysiinaysaa mar walba aad u qaadaysa marka daawadu waxay tahay waa dabiici side effect waxa la yidhahdo malaha waxaad u isticmaali kartaa any problem
iyadoo ku soo korin wax loo yaqaan side effect daawadu waxa laga doonayaa inaad isticmaasho xilliga aad quraacad xilliga aad cashada ka hor way caloosha markay maran tahay ayaa laga doonayaa inaad isticmaasho empty stomach wax loo yaqaano xilliga aad joogto oo baahan tahay sababta lagu sheegay taas maxay tahay daawadu waxay tahay in qofka nutrition ay siiso sababta qofku u baahan yahay hadduu wax nutrition uu helo caafimaadkiisu mar walba uu iska kacaya wuxuu helayaa wax loo yaqaano qofka ayuu helayaa wax loo yaqaano marka mar walba wuxuu baahan yahay qofku inuu isticmaalo xilliga uu baahan yahay tijaabooyinka sawirada kaga muuqda waa tijaabooyin la sameeyey dadka isticmaalay daawada la keliya hal daawo oo keliya ay shirkadda dabca keenta soo halkaas daawo ay u isticmaaleen qof ka mid ah daawada sidoo kale yaa laga heli waa anti-aging haddaad tahay mid weyn ama mid kaa muuqata haddii ay tahay inaad yusgeliso waxay kaaga dhigan tahay inaad dib isku celinayso yani dib ayaad isku yaraynaysaa waxaa laga wadaa yani selskaaga weyn ay ku samaysan loo yaqaano repairing ama inay dib isku celinayso ay kaaga dhigaysa soo mar allaala markaad isticmaasho takes you back by engage ina qof yar ka noqoto ay ku suurtagelinaysa yani appearance-gaaga mar walba ka muuqana yani qofkaad yar maxaa yeele wrinkleska midkaaga uu leeyahay ama da-da inay kaa muuqato kale ayaa mar walba ka hortegaysaa oo ka ilaalinaysa marka daawadu waxay tahay dabcan aad iyo aad u sareysa qofkan hadda kale waxaad u jeegaysaa daawadan inuu laba waxyaalood ba inuu isticmaalay marka koobaad uu isticmaalay waxay tahay inuu qofka afkiisa ka kor sidaan u ahay so after uu isticmaalayna waxaad u jeedaysaa afkiisa uu toosan yahay oo maasha allah u yahay sidoo kale waxaad dareemaysaa inuu qofkani da-diis marka hore iyo hadda isku mid ahayn so marka hore qoftaan ayuu ahaa kadib waxaa u jeedaa inuu yaraaday ayaad dareemaysaa sidoo kale waxaa kaga muuqata meeshaan qofka inflammation waxa la skinkiisa u haayo ama kansarka waxa u taqaano ama xambaar waxa u taqaanaba وقفا جديد وهاي صعب تصمم ليش واستعمال هاي حد أعرف تسويها قف نقله حاول تلسوا كلام قفا نصير حاول تنجي وحيانا يبدل يكوجي هاي واستعماله وهذا دريم تسوي وجهنا سواء كان هذه حاجة شو يعني سجل نيجنا استعماله كذا ووجد في 3 days قفا واستعماله 7 days سواء بنور با قف حنوك وكذا حاول يستوي أقرأ تسوي كلا يا واستعماله كتصور في جيس كسر بوزيشن يا قفا عليه وأطفال تسوي تعمل كلمة أما جيبنا هذا الحياة سواء أبطل عليه حدنا مسايم ما شاء الله وهذا وسعي يقبل أكثر التجاربين كتبت في الشرط وسميته كورة أنا يسوق الجوود يكون على عدين وكل عملوا فيديو يعمل حاله ولو ذاك الدورة إن شاء الله تعالى طبعا نبدأ صحيح هذا نبدأ شكلنا عفوا حنا يقول لك شيء بس من عفوا تقول فرق هذا ما تبغى مش أنا قبل الدنيا وحتى يقول لغاده شو طبعا حاجة جدول حمو فرق بدن وكردون وبسمع يا جدول أنا ليه قاعد أعلن أنا أشتغل أكيد أنت هنا تكتب أنت هنا أخش على يومك وحيا لما كشغل على أنتي حكام بحياة واحد فرق بدن إحنا بسوق اللي واحد لكن ما كان عليه بزنس أو أعلن هاي وحكام بحياة واحد ويا حق بسوق اللي يروح يعني تهم بس من تيجي هذا حلي عن مال كشغل يسوق كل يوم مكان تاعي أنا وش هذا بدن أتكلم بدشوا على فرق الناس marka hadii adiga shaqaalaha ay hotel ama maqaayad ama ka shaqeysid waxyaalaha aad ka shaqeysid waxa laga yaabaa inaad $150 aad qaadato ama $15 oo commission ama $20,000 aad qaadato laga yaabaa so marka waxa laga yaabaa shaqada inaad soo gashay subaxdii 6 in the morning galabtii inaad ka baxday 6 na laga yaabaa waxa ka baxay 8 saacadood ugu yaraan ama 12 saacadood oo kulisa ayaa ka baxay saacadahaas ka baxay waxa lagu talagalay hal saac oo kamid inaad ku maqnaato shaqada hadii ay dhacdo inaad ka maqnaato goobta shaqada waa lagu weydiinaa sababta oo maqnaato iyo meesha ay jirtay iyo waxa u maqnaato sidoo xanuunsan ka taxta waa lagu leeyahay أنا لو حتى ما تبين ما تقبل أبنا وسيرة وش كسكرتي. ثم كان حتى يعني نحس إن أنا كنت كوجستي حتى أقبل حبنا أو حتى وفيل جرا مش قادر يسوي. نجد تقف فوق أصبح 6 ساعات توجد 6. 1 hour of your time. ساعة of your time. 3 hours of your time. أما أنا 12 hours of your time. يعني ما هتبقى أشكال نفسية. إذا كنا نجيب compression كوسانا أيوة كثير جالس ما تشتغل. شو كان هدي أكون شغالة عن طريق دكان كشغل يصير أم بلد على كشغل يصير عقبة بسوي 15,000 كان يشيل أما 20,000 كان يشيل. أنا يقول ما بيشتغل كده ما تصل ما أنا يصير عقبة وقالته ركبت في باص كان عم أوش شغل يصير يقول هي هي المالي في استقبال يصير إنه يقارنه نقدرين يصير مش حاجة يصير إحنا استقبال يصير وجه. ركمان هو بروح يصير ما شو سوق وقرا يقول يا مالك أسعى ساعتين مالك أشياء ساعتين مالك أسمع سريس. فكرة أنت ما بين العقبة رجال كان الشغل توقع ده شنكر على جال يستمر. وحسب إنسان أنا عايز حر أو تاني أنا عليه بسوق الحر ما هو تاكل يعني نو ما يصير أنا بسوق الحر لكن مش أنا بركة جوتي أنت أتصمم يسوي حاول فري حر يعني أنت رفيق كتبان $1,000 كذا مليون أي شيء خاص كتبان هذا بس بيلو أصلا يعني أنا عايز أنا ولا إيش أنا ما أنتم على الوصول بديك أيه وش كده هو نكسر ما تسوي كذا 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 عقله
وحن شرطي هل تديك لي لقى دوني أنا بحسه شرطي أصلا فينا بحسه نبيه هاي إن سكتني يبسطوا حل واحد على تصالح مع سن يبسطي سبحان تاعي إن سكاشن يشان إن سكان كل يشان بقول كل يشين إن كل يبسطوا إن صدق يزيد كل يشان بقول كل يشين إن كل يبسطوا إن تكون يوم بقول كمان يأخذ كل يشين إن كل يبسطوا كم إذا يبسطوا أدوني فكان مثل إذا كل يبسطوا شكلت حوالي وفوسين إذا بدل alaab alaabtaas markii lagu siiyo lama sii oo isticmaalay inaad caafimaadka u isticmaasho waa leedahay for your own consumption inaad isticmaasho waa leedahay inaad iibsatona waa leedahay si aad lacagta adiga aad kaa baxday shirkadda aad u soo ceshato ama faa'iida aad ugu sii samayso haddaba markaa 9,500 aad baxayso ama 38,500 aad la baxdo ama 14,000 aad la baxdo hantida xidhiidha ka samaysa let's say 9,500 shilin ayaa shaqada ku bilowday badelkeeda waxaa lagu siinayaa 2 xabo oo AGCR ama 2 daawad ah aan ku isticmaalay lagu siinayaa inaad caafimaadkaaga u isticmaasho waa leedahay inaad iibsatidna dabcan waa leedahay si lacag sidoo kale 38,500 oo shilin aad ku bilaabi kartaa 38,500 oo AGCR ayaa lagu siinayaa inaad isticmaasho waa leedahay inaad iibsatidna waa leedahay haddaad intaa ku bilowday oo 4,400 oo shilin aad ku bilowdo shaqada waxay ku siinaysaa AGCR inaad iibsato waa leedahay si lacagtaadii ama nafii adiga usoo ceshito inaad caafimaadka ugu isticmaashana waa leedahay inaad qaar isticmaashana waa leedahay inaad qaar isticmaashana waa leedahay inaad wada isticmaashana waa leedahay intaan midkiin lagaa doonaya inaad ku bilowdo si aad mar walba adiga aad ganacsiga uga faa'iidayso haddaba aan dhahno 9,500 oo shilin ayaad ku bilowday waxaa jirta wax loo yaqaano payment method habka lacag lagu siinaya صراحة هذا هو أنا لو قال لي شغلة وقال لي درجة ضيق على البيسك كل شباب ولا كل شيء ما يربحه لو هو كان له كسب بيري علي يا كان له عشان هو كان علي وأنا كسب بيري على نسينا يا العكس فإذا الزوجاري صار لو كل أمر بقدرات الإشاشة عشان هو كسب بيري صار على نسينا يا العكس فإذا الزوجاري صار لو كل أمر بقدرات الإشاشة يا الله نسينا لا وقف من هو أيه لقدر مش كذا كسب بيري كذا واحد يقول لي وبقول صدق يتدوشين لما أقول كلية وشكل بسوبي أنا شكل الحين يصير إنسان نحكم وقول صدق يتدوشين أنا يصير إنسان والله أقول كلية العادة يقبل هذين السكان كل شيء بقول في شيء نايا سوبر كلية هايستا أو برودكت كلية هذا يوصلوا عن سيسر كذايو العادة فائدة ديوني صلابة ليس فائدة تدور في العادة يا باي Okay, so malik talabaad casho oo sharci keenay marka loo qofayo keensatay ali oo sharci keenana loo qofayo keensaday casho labada qof ay keensatay aniga isku waxay ka siinaysaa 200 iyo 200 shilin ali ina waxay ka siinaysaa 200 shilin so lacagtii sharci sameeyay waxay ahayd 8,600 iyo 600 shilin maanta waxaa la nacam waxay ahayd 6,100 shilin maanta ay ku daraya $7 أنت لو أنت صدقانة كده حاجة سينة سجدتكم اللي إحنا نقول اللي يكون شيء أي سينة سبب كده لا وأنت إذا صدقان لما نقف وصل عشاء كنت كان لما أيو كنسل كان لما أيو كنسل لما ده أيو كنسل لما كنسل لما نقول كنسل لما أيو كنسل لما نقول كده حاجة سينة كل يوم بقولها صدقة تبشر لما نقول يوم صدقة تدور كل يوم صدقة تدور كل يوم صدقة تدور كل يوم صدقة تبشر العقد الشرعي هلا waxay ahayd 8,600 maanta waxa la igu daray $7 so lacagta maanta maalinta saddexaad ah shirkadda aan ka helayo waa 13,609 shilin tamaan lacagta shirkadda iga baxday oo dhan 9,500 shilin badelkeedu waan haystaa oo gacanta ku haystaa oo haddaan iibsado lacagteedii 9,500 ka badan waa helayaa maalin 3 maalin gudood waxaan ku sameeyey lacag gaaraysa 13,000 shilin dadka meesha kuugu qoran ee iskan keenay waa 7 qof 4 qof oo kaliya hadday ka bataan taban dhaalawna oo badaniya marwalba waa kasii midda labaad salaana dhana 3,000 ku bilowday shaqada aniga 8,000 shilin ku bilowday oo ku soo gashay dhinacaaga midig ama right dhinacaaga waxa soo gelisay 38 la baxay dhinaca kalena waxa soo gelisay 38 ku baxay adu qof maadaama ay ku noqdeen shaqada waxay ku hundanaysaa 4,900 قفشنا في النقطة يكون أي قوة لا يستقر والله أنا فاهمك وصلت القصة دعية. أوكي. هذا سبت سجال كل مركز سوق على الضرب هيكون نقطة ساعة مثلا دوا بغاية قفشين هيكون نقطة ساعة لما نقطة بودية.
haddii labada qof aad keentay kana duu laba keensado kana laba kan uu keensado adiga dhinaca waxaa ku leedahay 4,950 shilin dhinaca 4,950 4,950 soo maalintii labaad ku ah shirkadda waxay ku siinaysaa lacag gaaraysa 34,950 shilin ay ku siinaysaa waa maalintaada labaad oo shirkadda aad ku jirto maalintaada saddexaad cali oo shala aad keentay labada qof oo shala cali wajina yacni laba ayuu keensaday kana laba ayuu keensaday labadana caasha qofka laba ayuu keensaday kana wuxuu keensaday labada ayuu keensaday sidaas darteed haddii shala lacagta aad samaysay ku hay 34,950 maanta waxaa lagugu darayaa 49,50 so lacagta maanta saddexaad ku ah helaysid waa 54,450 shilin ayaa helaysa taas waxaa dheer inaad shala qaadatay productigaagii oo 8 xabo ahayd oodaad iibsatay oo adiga aad kala qabtay 38,000 laakiin adiga aad ku iibsatay 45 ama 50,000 aad ku iibsatay marwalba waxaa tahay dhaqaale adiga ku samaynaya aad u fara badan shirkadana waxa kaga baxayna wixii wax kugu soo laabanaya on time isla markaas wax kugu soo laabanaya waay marka waxay tahay waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo lacagtaas gaaraysa waxaan rabaa inaad ogaatid aniga Soomaali joogno oo kale badana markaad shaqada sharaxaydo saddex baaqiin baan ii sheegay oo mid 9,738 in la baxayo wax loo yaqaano 1,140 laakiin Soomaali markaan joogno waxaan isticmaalnaa laba baaqiin joogriya baaqiinkan oo 38,000 oo 500 iyo kale oo 1,140 doolar marka koobaad marwalba waxay tahay ma isticmaalo because marwalba labadan account ayaa waaweyn oo lacag fara badan aad heli kartaa kan koobaad basiga 9,500 shilin lacag aad heli kartaa laakiin marka aniga inta aan joogo ama meeshaan aan joogo waxaa lacag badan ah haddii qof kale uu jiro iga sii koreeya oo 1,140 la baxayna way iga lacag badan yahay oo way iga hanti badan yahay soo marwalba waxaan u baahanahay inaan kasta jirno ama kan hadda soo socdaba inaan ku jirno next maadaama waxaa ku bilowday 1,140 ama lacag gaaraysa 114,000 oo kan shan ayaa ku bilowday waxaa shirkadda kusoo biirisay laba qof aniga ay keentay oo qaaliya waxaa shirkadda kusoo galay 114,000 waxaan shirkadda soo gelisoo kale caasho ayadana 114,000 la baxday soo aniga oo shirkadda ay kusoo biirisay waxay helaysaa lacag gaaraysa 29,700 oo kan shilin qofka waa soo gelisay waxay helaysaa 29,700 shilin laba qof maadaama ku noqonay shirkadda waxay kugu daraysaa 14,850 shilin laba qof oo keliya oo shirkadda kusoo biirisay ayaad waxaad helaysaa lacag gaaraysa 67,500 iyo 500 shilin ayaad helaysaa waa only laba qof oo keliya okay labada qof mid kamid ah oo Khalid laba qof ayuu keensaday mid kale laba qof ayuu keensaday labada kan waa sana waa 1,140 ana waxaan keensaday 1,140 laba dhinac kasta adiga shaqada waxay kaa siinaysaa 4,950 iyo 4,950 lacagta tan heshay 6 iyo 2,500 ku waxaa lagu daraa 14,850 maanta maalintii saddexaad kuwa shaqada maanta yani waxay ku siinaysaa shirkadda 1,3,600 shilin waa maalinkaaga saddexaad ee shirkadda aad ku jirto maalinkaaga labaad maalinkaga saddexaad labada aniga shalaa keenay laba ayuu keensaday kana laba ayuu keensaday labadaasoo shalaa saaxiibka uu keenayna laba ayuu keensaday kaas laba keensaday labo dhinac walba adiga waxaad ka samaynaysaa lacag gaaraysa 14,850 ayaa ka samaynaysaa maadaama laba qof ay ku maadaama aad sala samaysay lacag gaaraysa 103,650 maanta waxaa lagu daraa 14,850 maanta oo maalintaada labaad ku ah shirkaddu waxay ku soo celinaysaa adiga faa'iido ahaan lacag gaaraysa 163,000 lacag gaaraysa ayay ku soo celinaysaa soo shalay waxaa qaadatay productka adiga aad leedahay oo 24 xabo ah oo sii iibsatay waxaad kala baxday lacag gaaraysa 150 kala baxday maanta waxaa faa'iido u heshay 163,000 markii la suuqa qaadatay waxay ku noqon kartaa lacag gaaraysa 2,800 oo dollar ama 2,800 oo kan shan adiga lacagta kaa baxdayna waxay ahayd oo keliya 114,000 samarbu xataa ku faa'iido sameynaya lacag aad u fara badan oo sameynaya waxaa shirkadda lacagtan hadda idiin sheegayo waa maalinle maaha inaad qaadanayso bil maaha inaad qaadanayso usbuuc ama labadii maalinba mar maaha lacagta shirkaddan ay bixiso waxaa loo yaqaanaa real time pay out yacni waa lacag lagu siinayo immediately on the spot qofka markaa shirkadda kusoo biiraba lacagtaada horaa ka qaadanaysaa maaha inaad waqtigaa ku dhuminayso inaad lacagtaada qaadato online aa u gelayso ama fen aa u gelayso you are paid immediately on the spot marka qofkaas ku diiwaangeliyoba lacagtaada hora lagaa siinaa sababtani waxay tahay lacag loo yaqaano maalinle sidoo kale lacag waxaad samayn kartaa shirkadani gaaraysa la yidhaahdo bille ayaa samayn kartaa
lacagtaas billaha oo samaynayso waxay ku xiran tahay inkamkaaga maalinkeeda xataa haddii ay dhacdo inaad shaqada ka hesho $1 maanta inaad qaadato oo 100 ka shilin hadaad qaadato waxay xisaabsantaa waxaana shaqada ka baxay magaca loo yaqaan accumulated money ama lacagtii aad dabroosanaystay ama la isticmaalay adigu aad isticmaashay haddaba lacagtaas shaqada ku xisaabinaysa haddii lacagtaas lagu xisaabiyey ay gaarayso 20 bilyan lacagtaasi shaqada ku xisaabisay haddii ay gaarayso 20,000 oo dolarka Mareykanka shirkadu haddii lacagtaas ay ku gaarto 20,000 oo dolarka Mareykanka hadday ku gaarto shirkadu waxay ku siinaysaa lacag ay bishii ugu yartahay $3,000 iyo sidoo kale lacag loo yaqaano bonus loo yaqaano ama MCP loo yaqaano ayay ku siinaysaa oo ayadana bili ayay ku siinaysaa marka haddii lacagtaas sidoo kalena 50,000 ama 50,000 oo kale shilin ay ku gaarto ama 50,000 oo dolar hadday ku gaarto shirkadu waxay ku siinaysaa lacag minimumkeedu uu gaaraya $7,500 haddii sidoo kale darajadaas soo gaartana shirkadu bishii waxay ku siinaysaa lacag gaaraysa $500 ayay ku siinaysaa oo loo yaqaano full of your account intiisi ama monthly bonus waxa loo yaqaano ayay ku siinaysaa haddii lacagtaas dabcan ay ku gaarto waa 100,000 hadday ku gaarto ama 12 milyan oo kale shilin hadday ku gaarto shirkadu waxa weeye adiga dib ku siinaysaa mar walba ay ku soo celinaysaa lacag gaaraysa $15,000 Mareykanka then waxay kugu daraysaa lacag gaaraysa $877 ayay kugu daraysaa oo loo yaqaano bonus ama monthly bonus loo yaqaano sidoo kale haddii lacagtaas ay ku gaarto $250 shirkadu waxay ku siinaysaa $30,000 minimum ay ka baxo bishii waa $30,000 Mareykanka lacagta ugu yar bishii usoo geli karta iyo sidoo kale waxay ku ogoshahay inay ku siiso lacag $1 gaaraysa oo loo yaqaano fuel ka ama gaarigii ama lacagtii aad ka samaynaysay macnaha gaariga aad ka samaynaysay sabab dhaqaalaha shirkada laga sameeyo labadaas ayuu kala baxaa inuu bili yahay iyo mid maalin yahay sidoo kale waxaa jirta dhaqaalo weekly oo isdowle insha Allah taala you know it shirkada kusoo biirto haddii ilaahay afka ku dhaafo dabcan shirkada warbixinteedu ama qiimaha hadda ugu faraha badan lagu leeyahay karo waa intaasi waxaan rajeynayaa inaan kusoo gudbiyo qiimaha faarsan oo weliba frame oo gaaban insha Allah taala waxaan ogahay inay su-aalahaaga maskaxda kugu jiraan oo su-aalaha inaa haysato ama inaad ku xariiqanaysid waan kaaga jawaabi doonaa insha Allah taala marka waxaa jira qof shirkada adiga kugu soo casuumay oo maanta ku keenay inaad barnaamij ka qayb qaadato waxaa laga doonayaa qofkaas inaad la kulanto oo su-aalahaas aad weydiiso maanta adiga kugu hoos qor paper ayaa raba inaad weydiiso sidoo kale waxaan rabaa in adoo la kulminin qofkii soo casuumay inaad bixina waa kaa doona insha Allah taala maxaa yeelay qofkan shirkada kugu soo casuumay wuxuu soo casuumay adiga inuu wax kaa raadiyo wuxuu soo casuumay adiga fadlan ka faa'iidaysato dhaqaalaha fara badan marka loo kula weyntii inuu dhaqaalaha